inaan wariye ah oo arinta dabagal baan ku sameeyay igu yiri wuxuu ii sheegay in oo qolyahan iibiya qaar kamid ah dabcan de ballan bay ka qaadayaan inaan u sheegin inaan u saameeynin ayaa aan gaari la raacay wiiri balse aan waxaan ogaado cidda iibsanaysa iyo dadka ay la macaamilayso wuxuu inankaasi sheegay goobihii la istaagay ee lagaga iibsaday gabadhaasi waxa ka shaqeynaysay inay iskuul ku jireen inay jaamacada ku jireen in dadka iibsanayay ay hablo jaamacadaha islaamiga ah qaar kood dhiganaya ay ku jireen oo xijaaban gaariga yara taksiga ayaa telefoon lagu la hadlayaa meeshii lagu ballamay buu soo istaagayaa qofkii doonaya oo labisan oo qurux badan oo aan la islahayn qashin buu ka shaqeynayaa ayaa gaariga soo yar istaagaya wax yar oo laaban oo alaab oo kala oo loo dhiibayo oo kala baa loo dhiibayaa wala isfahmayaa lacagtana waa bu dirayba wuxuu ii sheegay waxyaalaha dhacay inay kamid ahayd oo gabadhu malaha ay uga sheekaysay inan aabaheed la socotaa inay ka iibsatay aabaheedna aanu dareemin oo inan baa wax ka qaadanaya aabaheed baaba gaariga ku sida halka ay u kaalay halka meeshii bay timid wixii yar ay ka soo qaadatay borseeda iskaga ridatay waxa laga yaabaa waxyaabo hataa si baarbaaro waxyaalaha ugu tala gashay baa jiro alaabo kale inay ku soo khaldayso waxa soo tusayso marka ikhwaani fillah runtii wax aad looga argagaxo oo laga yaxyaxaayo inankaasi ka sheekay waxaynu markaa u baahanahay ololaha la iclaamiyay in aynu kaga qayb qaadano wacyigelinta ubadkeena aynu ka wacyigelinayno ka soo qaybgalka meelaha wacyigelintu ay ka socoto aynu ka soo qaybgalayno soo sheegida cidda waxa si lagu arko inay ka shaqeynayso xashiishada iyo waxa la midkii way ka sii liitaan khamriga ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu xarimayay وحول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وحول هاي نوت المامي khamriga iyo khamaarku waxay nagu hayaan iyo dhibka ay leeyihiin dhibaatadoodii markuu ka sheekeeyayna fantahu bali fahal antum muntahun hal kaama ku joojinaysaan waa la xarimay waxa ilaahay uu sheegay khamrigu inuu noo horseedayo colaad iyo nacayb وانا halkay dhibaatooyinku ka bilaabmaan hadii colaadi timaado nolol jiri mayso dadku haday isnacaan oo isdilayaan oo nabadi aanay jirin nolol ma jirayso khadiraadku waxay ka bilaabmaan marka hore si fudud bay ku bilaabmaan qofka oo intuu wixii maqlo ama arko islaam iska tijaabi way ku bilaabanta dadana ay la gaadho meel aanu ka soo noqon kareynin waxay ku bilaabantaa asxaabta xun asxaabtiisa oo waxaan wadata
marka dambe way u dhiibayaan waanu la tijaabinayaan waxay tilmaamayaan qolyaha baarista ku sameeyay waxyaalaha faafiya ama baahiya inay ka mid tahay xafladaha xunxun ee wiilasha iyo gabdhaha iyo dhalinyaradu ay isugu wada imanayso qayb bay ka yihiin baahinta iyo barista qofka maandooriyaha sirofska fudud bay ku bilaabantaa waxa dhici karta mararka qaar kood qofka in waxyaalahan balwadaha siyaarka iyo kuwaasi ay u horseedaan oo ay ku hanooniyaan iyadana way tilmaameen laakiin kuwa kala ka badan bay leeyihiin asxaabta xun baa ka badan iyo xafladaha liita qofkii marka aayar tijaabi buu oranayaa way la yar fogaanaysaa wuu yar macaansanayaa marka dambana way qabsanaysaa darajatul idmaan buu gaaray yaani inay balwad u noqoto xashiishadii wixii la mid ka ahaa oo iyadu ay yeelato oo ay maamulato halka markuu qofku gaaro adduun ma dhaqan karo reerna ma haysan karo cidna isma qabanaya shaqadiisii waa waayaya had maalin dhaweyd laga yaabaa inaad baraha bulshada ka daawateen nin ka warramayay barnaamijkan one exhibitka waa barnaamij khamaaraho program khamaaraho mobilka laga ciyaar khamaara weey taasoo markaa la qabsaday shaqooyinkiisa sidoo ugu seegay iyo ninkaasi uu ka warramay inaad qaar badan dadka maartay ay daawadeen baa laga yaabaa waa tan ilaahay uu sheegay marka dambe marka qofkii wuxuu bilaabayaa balwadi way jiidanaysaa oo lacag ku iibsado ma haysto waanu doonayaa shaqadiisii way seejisay kanuu shaxaadaya waa la isu sheegaya marka dambe imika dadka ugu shaxaadka badan waa dadka balwadaha leh kolku maalinta hore wax ku soo weydiiyo caruurtii iyo wax sheego waxaad isoranaysaa waxba ka jiro waad u yartiray xogaa baad u tuuraysaa in yar buu ka maqnaanaya haddana uu soo jiiraynaya markaasuu wuxuu oranayaa maantana waxba sidaas marka dambe adigoo marka dee laga yaabo in aanad wari aad u fahmin ayaa dadkii kala dee sheekaysanaysan hebel baa soo qaadaysa wadno meel dib la soo hadlayso oo xogaa diiday soo aniga uu ila soo hadlay haddana marka deetana markaas dareen ku galaya dhowr qof markaad waraysato show dadkaba uu casay waxaad markaa ogaanaysaa ninkaasi inaanu caruur waxba u daydayeen ay balwadi jiidanayso ama chaatkiiba qaar baa ku go'an ama maaragtay waxaan kala ku dhex jiraa